ismaaciil baabuurka isagoo rooray uu ka soo baxay harajaan haw isagoo xiimaya bismillaahir rahmaan wala soo daba yaacay ciidankii jeerti ba soo daba yaacay maxaa dhacay maxaa waariga hada buu yiri aniga garda koreymatiina ta baraleel baad u shaqaysiine anaadi basaastiine ereygaasi ma ka soo dhacay caaq ismaaciil marka runta ka wada hadalno xaqa markaan ka hadalno hadalka ma dhacay mise ma dhicin maalin dhow qalkaaga markaad ka soo baxday adoo caroonaya baabuurka shukaanka ma qabsato ilaa artamaysa siidays hayo warande waran warkaasaa socdee haddii aad moodaysa inaan war lagu hayn taakada halkaa dhigtaba raadiyo bukaaca waa la soo gaarsiiya isagoo xiimayuu harajaan ka soo baxay askartii baa ka soo daba yaacday iga hada buu yidhi aniga iimatiin gaarda korre ee taa baraleel baad basaas u tihiin gaarigii buu qabsaday shukaanka markuu caroonaya isagaa kaxeeya la socday reer jabuutow u fiirsada marka ay saliida iyo biyaha iskaga laaqmaan caaq ismaaciil gaarda korrada ma aamino isaga gaariga shukaanka qabsada uu kaga duuliyay ilaa cartuisa sii taagay uu carooday uu diday maxaa magaalada la soo geliyay odaygii debrasyo baa haya odaygii debrasyo baa haya dee tolkiiha u taliyaan ee taa baraleel warkeegii maxay doonaysaa in la xidhxidho oo la dhaweelaye talada adigu hoo haye taana ma kuu dambaysa caaq ismaaciil istuwaarka kii u dambeeyey waa kaa haddaad ku quusan iyo haddaad ku qargoosan waxa magaalada kugu jira caaqi waa debrasyon hadduu debrasyon yahayna dee waa in laga qabtaa dee hadalkaasi inuu xaqiiqi yahay waxaan ku caddaynayaa anigu maanta caaq ismaaciilow haddaad inuu caqligaagu taam yahay cali cabdi iyo maxay ahayd mawaantowda maweynaati iyo kanaad adeerka u tahay ee beendaaciyo luflufkan iyo shixnadahan ceebta la wareegaya agtaadaba kama muuqdeen de ninka waalan baa la ninkiisa u fayo dee tolkaha kaa qabta dadka ilaan qarankani waxa lagu dhibaado fayo maaha dee iminkana waa kan lagu leeyahay xaajigii ma fiicna xaajigii buu isku dhex yaacay baa suuqa kuugu jirta iyagaana kuu geliyey dee annaga maaha kuwa aad adigu cashiirada moodaysa hoostaada fadhiya ee maaragtay jabkaaga u jiqi la buraayo agtaada fadhiya kuwiinba suuqa keenay annaguna adun baan dib kuugu soo celinayna xaqiiqdaana kuu sheegaynaa dee hawshii ma wadi kartid dalkiina waxaasaa ka socdayo dhibaato ah waana marag madoon dee inay xaaja kaa dhabaqdaye xal maahay sida xilka wareeji waxba kursiga ha jeclaan dalkan iyo dadkani badbaadu u baahan yahay ka faraha ka qaad amba caro amba did amba buub aday kuu taala imisaan ku lahaanu waa lagaa hoos kacay imisaan ku lahaa ka qabo imisaan ku lahaa ka joog dee aday kuu taala maanta anaga waxba dhexdiinu nama qaado haddii waali lagu badi iyo haddii faal iyo furre lagugu furdaamin annaga shaqadayada maaha iswada dabagala israaca shixnad foolxumadiina badda ku wada dhaca waxyeeladiina ma rabno xal mahay sida xilka wareeji ka bax meesha dalkan iyo dadkanina way tashanayaan waa lagugu hoos gaajooday waa lagugu hoos baabay dalkuna uu kugu hoos dumay wax nool dal iyo dunyo midna dad iyo dunyo ma jirto marka maxaan kugu daawanaa kugu dhowrsanaa waaba kan lagu leeyahay haddeed xaajigii isku dhex yaacay iyagaanu ka soo baxay hadalkaasi intii adiga kugu dhaweyd ayuu ka soo baxay dee markaa dadkii kugu dhawaa ha ku qabsadaan de ilaan qarankan madaxweynahan baad ka ahayd qaranka adigu ma lihid qaranka adigu ma lihid madaxweynaad ka tahay dee marka waa inaad ka baxdaa meesha horaan kuugu sheegnay annagu ninka aan dooranaynin xilka u dhiibanayna reer jabuuti haddaana annagaa xor iyo xalaal u ah marka waxaan ku leeyahay waad fashilan tahay iskaga bax meesha waxaan salaamayaa ummadda reer jabuuti dal iyo dibad waxaan salaamayaa caaq ismaaciil oo daalimka u weyneena dulmay camalkiisiina maanta haya waxaan salaamayaa itaa baraleelo tobaro kalaamee kumbani kuleli caashawaal dayacan baan salaamayaa oo iyaduna ayaama u hadheen waxaan salaamayaa xamaamadahan baarlamaanka fadhiya iyo dowladdan isku habsatee danaystaha ah ee nagu daawanaysa dhibta ee damiir laawayaasha ah salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu